maanta ay taariikhdu tahay 27 May 2021 waa maalin weyn xaqiiqdii oo taariikh ah baal dahab ahna ka gali doonta geedi socodka dawladnimada Soomaaliyeed kadib dhowr maalmood oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir ay magaalada Muqdisho uga socdeen wada hadallo ku dhacay jawi mas'uuliyad tanaasul iyo isqancin ku dheehan tahay waxaan ugu dambeyntii inagoo tixgelinayna danta guud ee dalka iyo dadka ku guuleysanay in xal iyo heshiis lagu wada qanacsan yahay lagu gaaro arrimaha madmadowga ku jiray ee doorashooyinka dalka iyadoo laga duulayo heshiiskii 17 September 2020 oo hagayay hanaanka doorashooyinka dalka lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo waxa lagu heshiiyay qodobadii lagu kala aragti doonaa sida arrinta gado hanaanka doorashada kuraasta Somaliland turxaan bixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka waxa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaadii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaan halkan mahadcelin uga jeedinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaas oo xaqiiqdii muujiyay tanaasul dulqaad iyo xilkasnimo taas oo inoo fududeysay in aan waqti kooban xal uga gaarno arrimihii la isku haystay waxaa mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii dadaalkii uu geliyay hanaanka doorashooyinka dalka iyo tanaasulkii uu sameeyay oo horseed u noqday heshiiska maanta aan u dabaaldegayno sidoo kale waxaa bogaadin iyo ammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo guddoonkooda oo kaalin weyn ku lahaa in la soo gaaro halka aan maanta joogno iyo ansixinta heshiiskii 17 September ee gundhiga u ahaa hanaanka doorashooyinka dalka mudanayaal iyo marwooyin sidii aan horay idinkaga ballan qaadnay waxa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hogaamino si cadaalad ah daafurnaan xor iyo xalaal ah oo aan cidna lagu xadgudbin insha Allah hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raali ka noqdo iyadoo aan ka ambaqaadayno heshiiskii 17 September waxaa mas'uuliyaddii naga saaran tahay aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee dhammaantood in aan xaqiijino in haweenka helaan qoondadii ay ku lahaayeen golayaasha sharci dejinta arrintaas aad ay muhiim ugu tahay waxaan maamul goboleedyada u sheegayaa in kuraastooda loo asteeyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta badan waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkii iyo garab istaagii adkeynta xasiloonida iyo dowladnimada aniga oo ka codsanaya in ay nagu gacan siiyaan mas'uuliyadda culus ee hirgelinta doorashooyinka waxaan marna la iloobi karin dardaarankiinii haddaad tihiin shacabka Soomaaliyeed iyo ducooyinkiinii niyadda ahaa ee aad sida joogtada ah ila wadaagayseen kuwaas oo runtii dhaliyay guusha aan maanta ku soo afjarayno shirkan wada tashiga qaran aniga oo ka faa'iideysanaya maalintan weyn waxaan ugu baaqayaa ka soo qaybgalayaasha munaasabadan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in aan iscafino qulubta isku furno niyad wanaagna la imaano marka aniga waxaan ka codsanayaa inaad cafisaan runtii waxaa ii muuqata rajo iyo kalsooni aan ku qabo inay dalkeena ka dhacaan
doorashooyin loo wada dhan yahay laakiin far kaliya fool ma dhaqdo sidaa darteed waxaan dhammaantiin mas'uuliin iyo shacabidin ka codsanayaa inaad nagu garab istaagtaan si aan u gudanno waajibaadkayaga sidoo kale beesha caalamka waxaan uga mahad celinayaa kaalintoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed anigoo ka codsanaya taageerada farsamo siyaasad iyo dhaqaale ee aan uga baahannahay qabsoomidda doorashooyinka ballanteenu waa doorasho daahfuran iyo isku duubni waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed walaalayaal soo dhawaada waxaan kaloo leeyahay walaalihii siyaasiyiinta Soomaaliyeed gadaashay inaadan waxba ka raadin wax kasta hortayda yaalaan midna ogaada soo dhawaada markaan idin leeyahay maahan madaxtooyadu soo dhawaada wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier